dishay magaalada Qaahira kadib markii uu isku dayay inuu kufsado inantan wadadeedu 15 sano jir ayaa Arbacadii 25 bisha May 2022 waxay xarunta hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay horteeda ka kireysatay bajaaj si uu u geeyo guri ay deganeed. Gabadhan oo magaceeda la sheegin ayaa isku dhiibtay bileyska deegaankaasi iyadoo si kaxaysatay qareeno, waxaana ay bileyska u sheegtay in uu la maray jid cagtu ku yar tahay kadibna uu la soo baxay mindi nooca isku laablaama oo dhuunta kaga qabtay. Waxaa intaasi ku dartay inay si kadisa mindida uga dhufatay kadibna ay laabta ka taagtay, sidaasna ay ku baxsatay iyadoo bileyska iyo wakiilo ka socday xeer ilaalinta geysay goobta uu falku ka dhacay. Xeer ilaalinta ayaa amartay in inanta 4 maalmood xabsi lagu hayo si baadhitaano dheeraada loo sameeyo. Ugu dambeyntii garsoorka dalka Masar ayaa sii daayay gabadha Soomaaliyeed. Garsoorka ayaa waxa uu yidhi ninka ayaa watay mindida waxaana uu doonayay in uu faraxumeeyo, iyaduna waa ay ka qaaday kadibna waa ay ku dishay. Ugu dambeyntii haweeneydan oo aan magaceeda la sheegin ayaa la fasaxay. Guurad Cunaabi,